Ma isweydiisay sida loo xakumo speedka electric motoryaasha? Sii fiirso videogan haddaad rabtid inaad ogaatid waxa la dhaho ESC mase Electronic Speed Controller, kaasoo loo isticmaalo controlka speedka motorada. Motorkan aniga aan isticmaalayo waxa waaye kan la dhahayo brush DC motor. Saad inta uga jeedid waxaan isticmaalayaa voltmeterkaas oo aan ku xakumayo speedka motorka. Voltmeterku wuxuu bedelayaa duty cycle-ka oo signalka ka imaanaya microcontrollerka kaasoo ah PWM signal waxa la dhahayo oo aan video hore uga hadlay. Inta waxaad uga jeedaa conceptiga ESC-ga. Marka hore MCU-ga wuxuu soo dirayaa PWM signal kaas oo meeshan bluega uga jeedi kartin. Signalkaasi waxaa laga yaabaa inuu u dhaxeeyo eber ilaa 3.3 volt kaasoon ku filnayn inuu daaro MOSFET-kan. Marka sida darteed waxaan isticmaalaynaa waxa la dhahayo gate driver. Gate driverku wuxuu sameynaa signalkii yaraabu kor u qaadaya. Wuxuu kaloo sameynayaana waxa waaye waxaa loogu talagalay dhaqso markii la deminayo mise la daarayo MOSFET-ka. Intaan uu daaran yahay ayaan xakumaynaa. Waxaan sameynaynaa marna waa weyneynaa periodka dhan baa ka dhigaynaa, marna waa yareynaynaa. Sida darteed marka motorka speedkiisa ayaan xakumi karnaa. Motorku wuxuu arkayaa sideedaba waxa waaye average voltage-ka oo aan video hore uga soo hadlay sida duty cycle-ka average-kiisa loo xisaabiyo.